mahadoo dhamme ilaahay bay u sugnaatay. anigu shalay markii aanu xilka u kala wareejinaynay wasaaradaha amniga ayaan sheegay halkani inay ahayd meelihii aan in badan ka soo shaqeeyey. dad fara badan oo Soomaaliyeed oo geyiga Soomaaliyeed meelo kala duwan ka yimi oo sharfan aan isku barannay. aadna waxaan ugu faraxsanahay maanta inaan rag aan in badan ka soo hoos shaqeeyey halkan aanu dib isugu aragno. waa xilli run ahaantii taariikhiya baan leeyahay, xiisab gaarana ii leh. ugu horreyn aan ku bilaabo inaan u mahad celiyo wasiirka iyo dhammaan maamulka wasaaradda arrimaha gudaha federaalinta iyo dib u heshiisiinta oo si aada u qurux badan u soo agaasimay munaasabadan xil wareejinta ah. muuqaalka halkan ka muuqda wuxuu ka turjumayaa tayada iyo waxqabadka wasaaraddana ay leedahay, sida quruxda badan ay u soo abaabuleen. waa uga mahad celinaynaa arrinta. waxaanu kale u mahad celinaynaa dhammaan inta xilligan duhurka la joogay oo kulul u dulqaadatay inay halkan fadhido, inkastoo jawiga uu si u yare ha kululaaday haddana dabayl wanaagsan baa jirta. ka soo qayb qaadatay munaasabadan xilka lagu kala wareejinayo laba oday oo Soomaaliyeed oo Cali Xooshna waxaan u malaynayaa arrimaha gudaha iyo amniga markuu ka shaqeyn jiray hadda muddo laga jooga. laakiin waa ka dib u soo curtay sidii uu fiqi sheegayay. fiqi naftarkiisu wuxuu isla armad cilla ku dhacdaayo meel iska tartan badan uu ka soo jeeda, laakiin ilaahay doorkan odaga waa asturayo arrimaha dibadda aad inkastoo la oran karo arma xuduudiiba jooga dibadda odaga arma ku degdega baan isriyo gudaha iyo dibadda meel baa u dhaxaysa meelaha muusii dego, laakiin fiqi baa la yiraahdaayo isagu meesha u sarreyso iska aada. shar iyo khayr wuxuu ka soo dheefayay nin meel fadhiyaya maaha. aniga waxa sharaf badan ii ahayd inaan fiqi si dhow u soo wada shaqeynay, khaasatan xilliyo adag baanu soo wada shaqeynay oo dalku uu dagaal ku jiro, oo annagu hadday arrimaha gudaha oo aan korjoogtayn badan ku lahaa arrimaha la xiriira xasilinta deegaanada dib loo xoreeyay aad baanu uga soo wada shaqeynay. sida madaxweynuhuba uu sheegay videoga aanu daawanaynay, fiqi wuxuu ahaa wasiirka wakhtiga ugu badan ku qaatay aagga hore. xaradheero nabad u badan ba ha ahaatee, laakiin nabadda naftarkeeda iyo inaan lagu soo dhirin meesha raggii wax ka geeyay buu ahaa. hadda waa meelaha aanu wax badan ka qabanay. dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu aada ugu faanayaan in iskuulaad laga dhisay, in adeegyadii bulshada la geeyey, laakiin 30 iyo dhowr sano ayaan mas-uul Soomaaliyeed xataa agaasima tegin in wasiirkii arrimaha guduhu uu bila u hoydo arrin yar maahay. marka xaradheer dadku meel nabadeed bay hadda u arkaan, laakiin tacab bay ku timi, nafur bay ku timi, dhiiranaan bay ku timi iyo mataqaanaa mayal adayg in halkaa la joogo. hadiyad kuma iman. waxaan rabaa inaan si gaara fiqi arrinta uga mahad celinno. waxaa kaloo iyana qayb weyn ka ahayd abaabulka, ma ahun aha xabadda iyo aagga hore in la tage, abaabulka bulshada, kicinta dadka. fiqi waxaan u malaynayaa qayb lixaad leh inuu arrintaa ka qaatayna iyo wasaaraddu aad baa la isula qirayaa. xilliyadii loo baahnaa in ciidamada iyo dadku ay isgarab socdaan oo iskabaan si weyn isagoo kaashanaya gobolka. marmar waxaan isnaa qolooyinkaygii hore ee mataqaanaa xukuumaddii hore war fiqaar ma weyda ka soo habsaan xagga abaabulka dadka iyo sibuu aada ugu run ahaantii faradhuudhuuban yahay. gobolka ururada haweenka, dhallinyarada, culimada aad buu ula shaqeeyey. waxaan rabnaa inaan taana la qiro. ninku wuxuu soo qabtay waa in loo qiro. kolley kharash fara badan iyo adeeg fara badan dowladda kama hele. qofka Soomaaliyeed markuu dowladda u adeego waa inuu magac ka dhaxlo oo weliba dadka kale ay u qiraan. waxaanu kaloo iyana si dhow uga soo wada shaqeynay wasaaradda oo wasiirku hogaaminayo iyo hay'adda markaa dib loo yegleelay ee Sodma la tacaalidii abaartii ba'anayd ee dadka ku habsatay. xilli adag oo qaraar bay ahayd. ilaahay naguma ceebeen arrinta. dadaal iyo juhdi aan uga mahad celinayo wasiir fiqi iyo guddoomiyaha hay'adda iyo howlwadanada oo dhan ee Maxamuud Macalin. run ahaantii laba waqti oo adag oo abaaro iyo daadada baan halkaa waxaan u malaynayaa libin badan oo la sheegto ayaa ku jirta. waxyaabaha aanan ilaawi karin waxaa ka mid ah
maalin maalmaha ka mid ah in 4,500 oo qof ay ku go'doonsanaayeen meel la yiraahdo luuq hebla maxay meel luuq u dhow yaro oo webigu 4 beenajaba ka maray halkan luuq goday ayaa la yiraahdaa halkan aanu ka dirnay diyaarado sida doonyo 10 saacadood baa loo soo jeeday doonihii meesha la geeyay labadii doonyood waxay sababeen in dhowrka kun oo qof naftooda la badbaadiyo arrin fudud ma ahayn markaa laakiin juhdi badan oo la geliyay doonyaha yaryar la geeyay ummadii way badbaadiyeen malaha tala haddaan hadda u sii raaciyo war doonyaha yeenan maalinta xasuusanay habal la sii geeyay oran lahayn dad abaar la qabsanay baynu ahayn oo dad baa wax idin yeelay bariyaha ismaynaan lahayn arrimaha abaaraha dad gureyntii dadka oo adeegidii gurmadkii baar dheere doolow luuq magaalooyin fara badan baa gurmadka la geeyay oo Jubbaland koonfur galbeed iyo meel walba ka mid ah ilaa galkacyo waa arrimahan sida tooska uga wada shaqeynay kuwaasi waa adeegii bulshada iyo gurmadkii waxaa kaloo iyana aan la ilaawi karin wasaaraddan sida labada wasiirba iyo raggii kale meesha ka hadlayba ay xuseen waa wasaarad xaaji cali xoosh wuxuu ku tilmaamay inay tahay calooshii waa run weeye fiqino wuxuu yidhi waa hooyadii wasaaradaha kale taasina waan ku raacsanahay waayo waa wasaaradda la rabo inay soo dhiraandhiriso oo soo fadhiisiso qaybsiga awoodaha labada heer ee kala duwan xilliyada qaar ama heerarka kala duwan haddii lagu daro municipalitiska iyo local governmentska wasaaraddan arrimaha gudaha ee Soomaaliya hawlo waaweyn bay soo qabatay rag waaweyn baa soo hogaamiyay oo anigu haddaan ka xasuusto jaamac yare iyo yaasiin nuur bide iyo soobe iyo abtigayana salman daflana mala isna waa joogi jiray mise amnigu u badnaa raggaasi xilli iyo waqti Soomaaliya ay muuqaal gaar lahayd si gaar ah ay u jirtay ayay ka soo shaqeeyeen haddii aad waaxyihii markaa jira dib u eegto waaxda horumarinta reer miyiga ku jirtay waaxda dawladaha hoose ku jirtay dadhiga ku jirtay xilli dalku uu central yahay oo uu dabad uu iska caabiyo guud ahaanna gudaha uu isu caafimaad qabo ayay talin jireen inkastoo markii dambe ay ciin daaqday saasay ku soo dhiqi jireen wax muuqda oo la taaban karana way soo qabteen laakiin hadda sabankan inuu joogno isbedel baa wuxuu ku yimi hanaankii dawladeed ee aynu lahayn federaal bay nagu soo korodhay federaalku waa hanaan maamul oo in badan oo adduunyada ka mid ah boqolkiiba 40 dadka adduunka ku nool dalal federaal ay ku hoos nool yihiin dalka Mareykanka ka mid ah Australia ka mid ah Hindiya ka mid ah South Africa ka mid ah Nigeria ka mid ah dalal waaweyn Ruushka ka mid ah oo quwad leh oo sharaf leh oo awood leh oo la tartama dhigood ba ka mid ah federaaleyntu macnaheedu ma aha in la kala tegayo oo la kala baahay oo qoloba intay calan qaarato ay dalalka dariska marti u noqonayso macnaheedu saas ma federaal baa la qaatay macnaheeduna ma aha dawladii centralka ahayd dawladii federaalka ahayd ayaa awoodeedii nusqaan ku imanaysa federaaleynta waxa loo qaataa in la daadajiyo awoodaha oo adeegyadana la daadajiyo si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay adeeg degdega oo sugan u helaan marka waa hanaan wanaag loo qaatay ma aha mid in lagu kala tago loo qaato mar haddii aynu federaalka qaadanay waxa loo baahan yahay dawladnimadeennana inay ka muuqato astaamihii lagu yaqaanay federaalka waa kuwa wasiir fiqi uu sheegay ee uu yiri anagu intii wasaaraddan aanu hogaaminaynay marna ma ay dhicin intay wasaaraduhu intay shiraan inay yiraahdaan wasaaradda la shaqeynay taasi waxay u baahan tahay sharci uma baahna dastuur uma baahna waxay u baahan tahay dadwad iyo odaytinimo iyo waayeelnimo iyo ummadda oo la isku soo dumo waxaan u maleynayaa suldaan cali xoosh suldaan inuu yahayna malama ogeedine suldaan cali xoosh waayeelnimadii odaytinimadii xoogagaalnimadii iyo way aragnimadiiba waa nin run ahaantii leh oo ummadda isku wadi kara kana odayn kara ilaahayna xilka inuu ku asturo ayaan uga baryaynaa
haddii aan soo gunaanado waad ogtihiin dalkan soomaaliyeed wixii ka burburay ma ahayn daaraha iyo dabaqyada waxaa ka burburay sharcigii iyo dastuurkii iyo haykalkii dowladnimo daarihii weli waa kuwan marba dib loo sibdhinayo oo iska dhaqan yihiin laakiin in dastuurkii la dhammaystiro kow la dhaqan geliyo adduunkaa ilaahay dadka ilaahay u abuurtay ay ku nool yihiin waxbarashadu waa adeeg bulsho qayb waxaa qaabilsan municipality-ga ama degmada markaa lagu nool yahay qayb waxaa qaabilsan maamul goboleedka qaybna waxaa qaabilsan dowladda federaalka anuu dalka hindiyan wax ku soo bartay oo federaal ah layskuma khaldo way u kala cadda maxaa inaga inagu adkeeyey ma inagoo murmayna baa waxaynu helnaa 5 milyan 4 milyan oo caruur oo weligood aan iskuul arag markay berri ina weydiiyeen war maxaad iskuulla noogu fulin weydeen waxaynu rahnaa waxaanu ka murmaynay federaalka iyagu suu ekaanaya ma qabato ubadka soo koraya soomaaliyeed arrintaasi in dastuurka la dhammaystira markaa waa geedka go-an waana arrin aanu ku bogaadinayno hay-adaha sharci dejintu sida ay u dhaqangeliyeen 4 cutub ay run ahaantii u ansixiyeen waxaa ku soo xigtay siyaasadii waa matalaad iyo ka qayb qaadashee dhinacii kale ee federaaleynta aan ahayna dimuqraadiyiinta oo wasaaraddan aada looga fadhiyo anaan hadalkeedu ku dheeranayn 2012 inta sane laga joogo waad garan kartaa inta goor ee wasaaraddan anigu markaan joogi jiray la yidhi war kalkan doorasho dhici mayse anugu garwadeen baan ka ahaa doorashooyinkii 2016 waxaan xasuustaa nin etoobiyaan ahaayoo markaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda oo tedros la yidhaahdo oo hadda wasaaradda World Health Organization hay'adda la yidhaahdo World Health Organization madax ka ah ayaa yidhi waxaan gaarantoo idinka noqonaya inaad doorka dambe doorasho aadi doontaan dastuurna aad dhammaystiri doontaan waad xasuusataa mana malaynaya horta ilaahay ayaamaha inaguma celiyo ayaamaha in qoliyo hadda damacyo fara badan ba inagala ayna yidhaahdaan annaga idin saxiixayno wax ilaahay baynu ayaamaha ka magan galnay laakiin dadaal iyo juhdi in la geliyo baa la rabaa doorashooyinka oo dalkan ummadda soomaaliyeed inay soo doorato hoggaankooda fursad loogu abuuro labada qodob ee dimuqraadiyeynta iyo federaaleynta markaan intaa kaga baxo labada soo raaca waa dib u heshiisiin iyo xasilinta labadaana waxaan u maleynayaa hawl wanaagsan iyo frameworks waaweyn baa ka jira oo in la dhaqan geliyo u baahan aad baanu wasiirka iyo wasaaradda ugu garab geli doonaa arrimaha in laga midho dhaliyo waxaan u maleynayaa aqoon iyo waaya aragnimana wasaaradda kuma yara dad in badan soo joogayba halkan iga muuqda wax badan og in la dhegaysto oo la dhaqan geliyo waxay u soo joogeen waxyaabihii khaldameen laga kadsoomay baa loo baahan yahay Soomaaliya fiqi baa wuxuu yiri hadda qoliyihii reer Somaliland baa bariha la tadabin jireen oo taataabanay uu yiri xaaji cali walla kaftame wuxuu yiri xagga ay Puntland war baa laga sugayay waniyo taataabasho iyo in cilmi la isku darana waa loo baahan yahay oo dadkii sidii la isugu keeni lahaa aqligii la isugu keeni lahaa Soomaali inaana kala maarmayn isma hudhooy uu yiri hays halayn xaaji cali aqligii la isugu keeni lahaa awalan inaga la inaga rabaa inaga dalkan Soomaaliyeed dawlad u ah maanta maamul goboleed oo dhami magacu doona ha sheegtee dawladda federaalka hoos taga aqligii iyo cilmigii la isugu keeni lahaa inaga la idinka rabaa maskaxana idin kuma yare daraal yarayaan meel ina dhigin aad iyo aad baa u mahadsantahay